mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururadii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullah waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahay culimadii ugu waaweynaa hatta Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual ani xasan afshir waa agtaagana wuxuu yiri been baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumay waa kuwe war culimadii dalka xukuntay waa kuwan hortayda safan Sheekh Hebel oo istaag Sheekh Hebel oo istaag Sheekh Hebel oo istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dilay waa war dhalinyaro sakhraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda galiyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta ma aqoon laakiin hal nin oo wadaado yiraahdo waa beenta hal nin wadaado yiraahdo waa qalad kitigood way wada aamuseen maxaa u malaysay marka shacabka markaan soo noqonay oo ururka haweenka lay dhiibay anigoo maaragtay gabar dhalinyaro oo muxuu xalana ka soo baxday oo aan istusaalay inaan maaragtay ragga maaragtay aan ka karti badnaan karo raggi aan xalana ku wada jirnay maxamed xaashi cilmi maxamed xawaadle Ismaan Jaamac magarta Xasan Keyd iyo rag badan baan ku wada jirnay marka waxa la yiri muxuu ahay gabdhii Soomaali raggi wayba ka horeeyaan arrinkaas ayaa waxay noqotay in ururka haweenka anigoo macallimada aadi ah oo af Soomaaligana aad igu yar yahay ku barbaaray dhul gaalo ayaa la dhiibay ururka haweenka marka maaragtay PRO la dhigi jiray dabcan ururka wuxuu required garan jiray inaan dibadaha aado waxaanan ahayn dawlad ahaan dawladda kacaanka waxay ahayd dawlad u janjeerto xagga shuuciyada socialism oo maaragtay aanan cilmi ku dhisneen oo aanan dadkana u bisneen ama tacliinteeda aanan haynin ayay dawladda Soomaaliya adab gareysay marka aad dadka shuuciyada la socoto dabcan influence-koodii ayaa aad ku gaaray waxa marka shuuciidnimada iyo dawladda maxaa wadamada galbeed waxa aad ugu muxuu ahaa caan ah dumarka in la simo qaasatan markii dagaaladii koobaad iyo dagaaladii labaad laga soo noqday waxa la arkay haweenkii inay xubin yihiin firfircoon ama goobihii maartay shaqooyinka looga tagay intay ragga xaqbiga ku maqnaayeen marka in la simo oo yaani ragaba laga hormariyo ayay maartay adopt kareen anaga as a Muslim state oo dal maskiin oo soo karaya dabcan dal galbeed ama shuuci talaabaday qaadeen anaga ma qaadi karin laakiin waa isku daynay waan ku dayanay ururka haweenka marka waxa jirta shirar aan aadno Moscow New York meel walbo United Nations ba waxay marka soo saartay baaq waxay ku magacaawday sanadka 1975 International Women's Year sanadkii caalamiga ah ee haweenka adduunka oo la simaayay marka saddex qodob oo waaweyn baa la soo saaray equality sinaan development horumarin iyo peace nabad dawlad walba iyo urur walba oo haween yaani waxaan ahayn sponsor by the United Nations marka arrin dawladeed bay ahayd ma ahayn wax urur iska wataan guddigii loo magacaabay International Preparatory Committee dhijir guddiga diyaar gareynaa sanadka 75 ayaan member ka noqday waxaana gacanta haysay Valentina Tereshkova oo ururka haweenka madax u ahayd يعني أنا جو حنين ضل وطو صح وكتر سنين مركا يونايتد نيشن إيه وحي كتر سنين ده وناك سنتر كوميتيت كتيب أو إركا تكتي ساتلايتك معي دي ضيح ترشكوف واي دمر بدلوا وين يونايتد نيشن كشقينا هيلفسي بلا ناقليرا دمر بدلوا وين باجر واي مركا هالكاسان برتن كوقلنا واي باكج كيبان سوق هذا waxaan nimaday wadankii waxaan markii dib noola kala qaybin region walba Africa Asia
inay shirar regional qaataan waay Soomaaliya lagu qabtay shirka oo preparatory committee ay maamulaysa waa dhinaca kalena waxaa socday sharci oo la yiraahdo ahwaal shakhsiya ama sharciga qoyska oo muddo badan buu ku dhex meermeeraysanay dawladaha Carbeed oo Islaamka oo laakiin u janjeera hanti wadaag waay waxa kamid ah Suuriya waxa kamid ah Ciraaq Cadan marka waxa la yiri in ahwaal shakhsiya ama statuto personale ama sharciga qoyska qof walba si ha u yaqaanay afar qodob buu ka koobnaa waa qodobka socialka oo yaani xadidaad la xadidayo in ragga iyo guurarka iyo yaani cadaalad darrada dumarka ku dhacayso waxyaabahan hadda maanta la wado kootada iyo adduunka iyo qoyska maartay sinaantiisa in la sameeyo qodobka afaraad wuxuu ahaa qodob aad xasaasi ah wuxuu ahaa dhaxalka qodobka dhaxalka in gabadha iyo wiilka ay u siman yihiin waay wixii dhaxal iyo wixii xuquuq ah yaani bulshada ay ka tirsan anaga urur ahaan ma wadin wasaaradda cadaaladda wadi jirtay Cabdisalaam Sheekh Xuseen oo bariga ka ahay wasiir Sheekh Xasan Cabdullaahi Allah naxariiste oo markaa maaragtay xubin weyn ahaa xagga diinta Maxamed Aadan Maxamed Sheekh Ismaan gudi bay ku jireen anaga nalama maaragtay weydiin anagana to be honest dumarka Soomaali waxaan ahayn dad aanba u baahneen markaan runta ku sheego in sharcigaana lagu dabaqo because dawladihii muslimka ah shuuciyada ah way fiiriyeen qodobada si carefully baa loo istadigaray waxa la yiri ilaahay baan u dhacaynaa xuduudkiisa marka si silent ayaa qodobka afraad looga haray ducaalo anaga laakiin umada Soomaali tafsiir badan ma aqoonin quraankana wuu ku yaraay shuucinimana waa nahaysay yaani kama faa'iideysan dawladii Carbeed maxay yiraahdeen waxaan dhahnay ilaa waxaan sameynay olole cajiib ah gabadhi pilotka ahayd tii taqtarada ahayd tii askariyada ahayd name it all walk of life yani dhinac walba oo nolosha bulshada gabdhii ka tirsanayaan waxaan sameynay banaanbax weyn oo stadio Koni la isugu tagay gabdhii baareed bay galeen xubin walba dumarkii Soomaaliyeed hidii dhaqankii bay muujiyeen gabdhii mutacalimiinta ardaydii gabdhii secondary-ga dhigana adigu meeshii waxa ka dhacay dawladtus cajiib waana ka maqnaay stadiumka marka intaan la imaan ayaa waxa dhacday golaha sare oo kacaanka uu Maxamed Siyaad hogaaminay in la yiri war maanta dumarkii baa dabaaldega United Nations waxay soo saartay qodobo maxaan u qaban karnaa lagama fiirsan sharcigan hala aqriyo sharcigan mihirgeli karaa يعني emotion با maamulka dhan dalka emotion ba lagu maamulay waxa yiraahdo baas marayna sharciga just like that heerka qoys wuxuu yimid goobtii buu yimid madaxweynihii iyo nimankii golaha sare kacaanka kulligood iyo golihii dawladda khudbada la qaatay aniga furay personally waxaan maartay in yar brief yar siiyay in maartay sanadkan uu yahay sanadkii ururka haweenka markii dambe Xasan Afshir baa gadaashay qaatay oo duqa magaalada ahaa ani asaga labada dhinac baan kaga taaganahay madaxweynaha bartankeenu taagan yahay markii Xasan Afshir ku soo dhaweey madaxweynaha hadda stadiumkana madax mahane wax kale meel banaan oo muuqdo bajiro waa bari adiga wax kasta sheeg madaxweynaha khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn adduunka laga maqlin caalamul islaam annagana nagu noqotay surprise ma garad ma ya farxad iyo surprise wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo hadda ilaahay hay wacdaaba dambeesho waan ag taagnaa wuxuu yiri maanta haweenkii buu amaanay wuxuu yiri waa xubinta kacaanka maaragtay ugu firfircoon aabooyinkii buu kondaam gareeyay wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraahdo nus ma jirto ma garatay wala rubac wala tumun ma jirto rag dumarka waa simani Maxamed Siyaad Barre kuma u ekaysanin inta annagana farxad baan la dilaaci rabaa laakiin wuxuu galay bad kale oo annagana qusayn wuxuu yiri bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa 1975
intaanan rasuulkeena maxaa la sallallahu alayhi wasallam imaan gabdhaha waa la aasi jiray carabta quraysh quraankii baa yimid wiil ma hadda ka gaadhay waa laga maartay waa laga mamnuucay ayad baa ku soo degatay intuu sheegayay okay bay ahayd wuxuu yiri muxuu ahay ayad walba events kan marka imaanay ayaa bedelaysa virtually quraanka boqolkiiba konton waa isbedelay buu yiri ma garat haddana waxaan marinaha uu yiri 21st century qarnigii 12 ha 1975 baan maraynaa marka sidaa darteed waa simantihiin waaw garoonkii dhan baa isqabsaday ma garat aniga waxaan ku dhawaaday isaga dhan intaan qabsado aan dhulka shaka buuxiyo mana weegi ku xiga banaan bax weyn baan samaynay qamiistan banaan baxnay jimcaheedii oo masaajidii xamar la isugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday waxaa qabsaday dhalinyar masaajidii bay qabsadeen waxay tarjumeen khudbadii madaxweynaha oo sideedii aan waxba lagu darin waxaa meesha maartay ka dhacday marka dood diineed oo madaxweyne muslim oo islaan oo ulil amri islaan ayaa wuxuu yiri ragay dumarka waa siman yihiin ilaahina nama siman khudbadan madaxweynaha tiri halkii baa maartay waxa ka kacay buuq maalinta maxamed siyaad ceel jaalow jiray markiiba taar baa loo diray waa la ogeysiiyay magaaladii waa laga qabsaday magaaladii waa laga qabsaday amar baa la bixi bulsi mataar inay masaajidada gasho oo mikrofoonada demiso oo dadkana dareeriso oo wixii qudbeynayna la soo xiro sidaaba waxa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxa la geeyay maxkamad waxaan ka kale iloobay 1971 kacaanka kan wuxuu ka soo guursaday Suudaan sharciyo la dhigi jiray 26 article qofkii banaan baxa waa dil qofkii hebel waa dil wax alaale wixii subversive oo dawladda ka soo horjeedo waa dil article 54 waa tay maartay waa tay raggi golaha sare dhexdooda lagu apply gareeyo Allah u naxariisto salaad gabeeri ceenaashi dal ay maartay ku dhacday falaada sharcigaas oo aha marka sharciga wadanka yaalo dawladda sharciga bay u tiigsatay wadaadadii waa dil baa lagu xukumay mar alaala markii dil lagu xukumay ayaa maxay ahaday wuxuu yiri shir degdeg ah tiyaatarka la isugu yimaado ururradii oo dhan wuxuu u yeeray muftiyiintii culimadii ugu waaweyneed ee magaalada xamar ku nooleed waxaan ka xasuustaa Sheekh Ali Suufi waxaan ka xasuustaa Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi waxaan ka xasuustaa Sheekh Maxamed Iimaan waxaan ka xasuustaa Sheekh Abuukar Maxla Suulay yani adigu muxuu ahay culimadii ugu waaweynaa hatta Sheekh Ali Suufi waxa lagu waday raar miskiinka wheelchair khudbad buu la kacay as usual ani xasan abshir waa agtaagana wuxuu yiri been baa layga sheegay waxa la yiri dawladda Soomaaliya waxay dil toogasho ku xukuntay culimo waxaan rabaa buu yiri inaan weydiiyo ummadda Soomaaliya culimada aan aniga qabtay ee aan dilka ku xukumay waa kuwe war culimadii dalka xukumtay waa kuwan hortayda safan Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag Sheekh Hebel istaag magacyada dhan buu tilmaamay culimada aan dilay waa war dhalinyaro sakhraamiin oo ciyaala suuq oo imberelida caalamada dabada ka wado oo maartay qalqal dawladda galiyay ayaan xiray oo dil ku xukumay waa kuwana waxaan ku sheegaa ducaale aniga at that time diinta ma aqoon laakiin hal nin oo wadaado yiraa waa beenta hal nin wadaado yiraahdo waa qalad kidigood way wada aamuseen maxaa u malaysa marka shacabka Soomaaliyeed